السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن صاحبيال maanta waxaan soo qaadan doonaa saddex qodob oo nolosheena wax ka bedeli doona saddexda qodob waxa ugu horeeya kow qofku inuu control emotionskiisa dareemayaashiisa inuu qofku uu muxuu ahaay controlo kolba xaalad aad ku sugan tahay waa inaad controlsha waa inaanay dadku ku ogaanin markaad warwarsan tahay marka muxuu ahaay dhibaatada ka haysato marka ay xaalado adag ay kula soo dirsaan waa in aad muxuu ahaay aad adkaysataa oo aan laga dareemin waxa laga yaabaa hadii daciifnimadaada iyo xaaladaada la ogaado waxa laga yaabaa inay dad badan oo nacabkaaga ay kugu wiirsadaan qodobka labaad accepted reality waa inaad aqbashaa reality-ga inaad aqbashaa maxaan uga jeedaa si naftaada aad horumar ugu sameysid waa inaad marka hore aamintaa oo ay ka soo go'daa xaaladda aad ku sugan tahay haddii aad maanta u baahan tahay in aad aqoontaada dhistid oo jaamacad gashid waa in aadan isbarbar dhigin darajada uu gaadhay qof degree dhameeyay master dhameeyay PhD dhameeyay oo maanta nolol fiican ku sugan mushaar fiican qaata waa in aadan noloshaada barbar dhigin waa in aadan ka warwarin waa in aanu dhibaato aan ku keenin qofkaas marka waa inaad reality-ga aad maanta ku sugan tahay xaaladda aad ku sugan tahay maanta waa inaad aqbashaa kadibna aad horumar sameysaa qodobka saddexaad waa inaad caafimaadkaaga daryeeshaa markasta oo aad caafimaadkaaga daryeeshid oo markasta oo aad ujeedooyinka aad nolosha ka leedahay iyo balaniskaaga ku qorsheysan aad gaari kareysid laakiin markasta oo caafimaadkaagu uu xumaado waxa xumaanaya muxuu ahaay mustaqbalkaaga markasta oo balwado badan aad isticmaashid markasta oo cunto nafaqo leh oo balance diet aad isticmaali weydana waa markasta oo ay xanuuno iyo dhibaatooyin caafimaad ay kula soo dirsi karaan oo muxuu ahaay ay balaniskaaga iyo qorshayaashaada ku dejisna aad gaari kari weydo marka saddexaas qodob ayaan ku soo koobiyaa oo mahadsantihiin